بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين runtii waa farxad weyn bay noo tahay inaan ku soo dhaweyno Garowe magaalada madaxda Puntland wasiirka qorsheynta federaalka Soomaaliya iyo wasiirada qorsheynta saaxiibaday shanta maaragtay maamul goboleed ama dawladda xubinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya halkaan maanta waxa nooga socday shir lagu la fagurayo arrimo badan oo muhiim ah oo igu muhiimsan tahay arrinta mashaariicda wadanka ka socota oo la wada leeyahay sidii loo dardargelin lahaa iyo sidii insha Allah taala barnaamijka socdo oo lagu horumarinayo qorshaha qaranka oo maaragtay si isku mid ah iyo taladiisa loo badin lahaa loona dardargelin lahaa waxa ugu muhiimsanaayo aad waqti badan u gelinay oo walina noo socda in qaabka ama hab dhismeedka deeqaha dalka soo gala ama ha noqdaan kuwa horumarineed ama ha noqdaan kuwa bilaadanimo go'aankooda ay gacanta loogu soo celin lahaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah hadeer walaac weyn baan ka qabnaa concern weyn baan ka qabnaa sida loo maamulo iyo sida go'aankiisa loo qaato insha Allah beritoole waxaan ka soo saari doonaa communique aan intaanaan la wadaagi doona madaxda qaranka oo shirsan haduu Ilaahay yiraahdo waana heli doontaa war ka soo baxa sidoo kale waxaan ka hadalnay halkaan uga faa'iideysanaa fursadan abaar baan inay dalka oo dhan ka jirto guud ahaan geyga Soomaalida sidaas darteed roobkiina ay ku dhow yihiin inay baaqdaan hadda bil iyo bir muddo ku dhow ay dib dhacsan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa waxaan baaq u diraynaa cid kasta oo naga taageerta gacan naga siisa ama deeq bixiyaasha noqoto ama dawladaha saaxiibada ha noqdaan in Soomaaliya xaaladda abaarta degdeg tahay jawaab degdeg ahna loo baahan in laga bixiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin DMI